dallada isku xidhka haweenka ee nagaad ayaa kulan ay u qabatay haweenka saddexda xisbi qaran ee Somaliland kadib waxay kaga hadashay arrimaha caqabadaha ku ah qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Somaliland oo ay ka mid yihiin dib u dhaca doorashooyinka iyo muranada xisbiyada qaranka ee ku aadan komishanka doorashooyinka. Kulankaasi ayaa intii uu socday waxa haweenku ay ku lafagureen sidii xal looga gaari lahaa muranka doorashooyinka ee xisbiyada Somaliland iyagoona talooyin kala duwan halkaasi isku weydaarsaday. Kulankaasi markii uu soo idlaaday waxa warbaahinta u akhriday war-saxaafadeedka kulankaasi ka soo baxay Asmahan Cabdisalaan Xasan gudoomiyaha dallada haweenka ee nagaad. haweenka saddexda xisbi qaran ee dalka Somaliland waxay aad uga xun yihiin dib u dhaca ku yimi doorashooyinkii qorshaysnaa 19 Maarso 2019 oo sababta dib u dhacuna ay tahay ay u arkaan muranka axsaabta. laba haweenka saddexda xisbi qaran ee dalka Somaliland waxay aaminsan yihiin in muranka axsaabtu uu xadgudub ku yahay dastuurka qaranka, xeerka doorashooyinka iyo xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka. saddex haweenka Somaliland saddexda xisbi qaran ee dalka Somaliland waxay si wada jir ah baaq ugu dirayaan saddexda xisbi qaran oo ay ugu baaqayaan inay sida ugu dhaqsaha badan u soo afjaraan murankooda. afar haweenka saddexda xisbi qaran ee dalka Somaliland waxay si wada jir ah baaq ugu dirayaan saddexda xisbi qaran kana codsanayaan inay dhowraan xuquuqda siyaasadeed iyo xaqa doorashada ee muwaadinka qodobka 22aad faqradiisa koowaad iyo labaad ee dastuurka Somaliland. afar haweenka saddexda xisbi qaran ee dalka Somaliland waxay golayaasha xeer dejinta Somaliland ugu baaqayaan inay sida ugu dhaqsaha badan leh xeerka doorashooyinka ugu daraan una ansixiyaan oo ay kootaduna ka mid tahay kootada haweenkuna ay ka mid tahay. haweenka saddexda xisbi qaran ee dalka Somaliland kulmiye ucid iyo wadani ayaa maanta baaqa soo saaray maanta oo ay maalintu tahay 18 January 2020 Hargeysa Somaliland. وعيد دروس بيرشية تلفزيون كي يونيفرسال هرقيسة.